hay'adda wadaniga ee Seyko iyo ururada arrimaha bulshada ayaa bishii Ramadaan waxay ka qayb qaadanayeen quudinta iyo sidoo kale caawinta qoysaska danyarta ee ku dhaqan magaalada Burco. Halkan waxaa caawa lagu abaalmariyay isla markaana shahaadooyin lagu siiyey xubnihii ka qayb qaatay isla markaana ahaa lafdhabartii quudinta dadka danyarta ee ururada Seyko iyo sidoo kale kuwa kale arrimaha bulshada ee kala qayb qaadanayay. Munaasabaddan oo ah munaasabad aad u filan waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Togdheer, kuwa jaamacadaha Burco iyo mas'uuliyiin kale kuwaasoo dhammaantood u mahadnaqay xubnaha mutadawiciinta ah. Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay isku duwo ku-xigeenka diinta iyo awqaafta, gudoomiyaha jaamacadda Togdheer, gudoomiyaha maxadka shaqaalaha ee gobolka Togdheer, isku duwayaal madax dhaqameed iyo marti sharaf kale kuwaasoo dhammaantoodba ka hadlay maamuusidda iyo mahadnaqa xubnihii ka qayb qaatay barnaamijka quudinta iyo ciidsiinta danyarta iyo agoomaha ku dhaqan gobolka Togdheer. geesta kale waxaa shahaado sharafyo la guddoonsiiyey xubnihii ka qayb qaatay tabarucaadka dadka danyarta lagu gaadhsiinayay quudinta iyo ciidsiinta agoomaha ee gobolka Togdheer iyagoo barnaamijkaasi ku waday qaab iskaashi bulshada. أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وصدق الله العظيم. hadda waxaynu si toos ah u sii guda galaynaa waxa loo yaqaano xafladeeni maadaama quraankiina ku furfuranay haddaba caawa waxaan halkan doonayaa in stage-ka uga yeedho waxa loo yaqaano the man behind this idea Seyko waxa weeyaan aasaasaheedii gudoomiyaha isla markaana ah xubintii bilowday ee ugu horeysay ee bilowday inay tacab geliso bulshadeeda isla markaana ay waqti siiso waxa weeyaan waxaan doonayaa in stage-ka igula soo dhaweysaan waxa loo yaqaano His Excellency Abdixakiin Saleebaan isla markaana ah gudoomiyaha iyo aasaasaha hay'adda Seyko isla markaana ah xildhibaan ay doonayno insha Allah bidnillaahi kariim golaha deegaanka ka xaadirino marka fadlan sacab igula soo dhaweeyay waxa loo yaqaano gudoomiyaha iyo aasaasaha Abdixakiin idinkoo maasan sacab iyo fadlan Abdixakiin dhammaan waxaan salaamayaa marti sharafta halkan isugu timi madaxda leh xildhibaanada leh agaasimayaasha leh isuduwayaasha leh hablaha quruxda badan leh dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaahay waa mar labaad iyo mar saddexaadba mahad leh ilaahu isugu keenay madashan quruxda badan ee bilan ilaaha mahaddaa iska leh oo nabadqab iyo deganaanshaha ayna siiyey baynu mahad celinaynaa. intaa marka laga yimaado madashani waa madal la isugu yimi madashu waxay ku saabsan tahay boorkaas ka muuqata doodeena waa barnaamij ay ku midoobeen arrimaha bulshada ay hogaaminayso hay'adda Seyko oo ay ka mid yihiin arrimaha bulshada kale isugu yimi khayr wadaag dan wadaag sees saaya aakhiro iyo Seyko waxa ay ku saabsanayd bishii barakaysanada Ramadaan ee soo dhaafnay ay barnaamijkaas ku saabsanaa waxa uu ahaa 100 qoys oo ciidsiina iyo 75 qoys oo quudina waxa ka shaqaynayay dhalinyaro fara badan oo mutadawiciin ah oo aan wax mushaar ku qaadanaynin ayaa ka shaqaynayay oo iyagu iskood su xilqaamay dadkooda danyarta iyo agoomaha ee gobolkeena inaguna nool ayay markaa u shaqaynayeen oo si ugu shaqaynayeen mutadawacnimo ah saasay ku soo dhamaatay si qurux badan bay ku soo dhamaatay waa xalfadeedii ama sabootinteedii caawa markaas insha Allah khayr baan rajaynayaa iyo wanaag dhalinyaradaas ka shaqaysay iyo dhammaan intii ka shaqaysay ama hooyooyin ha noqoto ama dhalinyaro ha noqoto inama iyo hablaba intii kale ka qayb qaadatay ama hay'adaha ama dawladda ama maxay ahayd toolayeen cid kastoo ka qayb qaadatay aad iyo aad bay u mahadsan tahay dhammaan idinna mar labaad iyo mar saddexaad bay u mahadsantihiin waxaan fariin u dirayaa dadkeena wax haysta
ama dawladda ha ahaato ama ganacsatada ha noqoto ama hay'adaha ha noqoto inay dadkeena dayarta ah ee baahan hoos loo eego oo loo dhimriyo oo la isu naxariisto si ilaahayna uu inoogu naxariisto korka inooga naxariisto fariinta labaad aan diraya waxa weeye mar kasta inaynu ilaashano nabadgelyadeena iyo isku tiirsanaanteena iyo isku xidhnaanteena intaasan kusoo gunaanadaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tacaala kulayl fara badan iyo kaliil fara badan baa lagu jiray laakiin ilaahay waa inaga soo jebiyey subxaana wa tacaala madaxda kala duwan ee wasaaradaha isuduwayaasha ka ah bahda dowladda hoose gudoomiyayaasha jaamacadaha isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta musharaxiinta goobta ku sugan iyo marti sharafta kale ee dhalinyarada ugu horeysay ee kasoo qayb gashay dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caawa waxaynu u joognaa madal xidhitaan ah oo aynu soo xidhayno barnaamijka ay noo soo agaasimeen walaalaheenna soyko oo ah inay 75 qoys bishii barakaysnayd ee Ramadaan ay afuriyeen ama ay siiyeen raashinkii bishaas barakaysan ay ku soomi lahaayeen iyo sidoo kale inay 100 qof oo ubad ah ay ciid siiyeen maalintii ciidka ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro iyaga iyo ciddii kale ee hawshaas kala shaqaysay si uun gacanta uga geysatay mutadawacnimada iyo haddii gacmuhu sidaasoo kale ay u farabataan institutionada noocan oo kale ah in ay farabataan waxa aynu bulshadeenna ka geysanaynaa wax fara badan haddii markaa la helo kuwo dhalinyarada ciidsiiya kuwa bilaa aan karaynin inay keligood ciidaan afuriya qoysaska aan afuri karaynin kuwo kale oo dhalinyarada ka shaqeeya kuwa arrimaha siyaasadda u taagan haddii sectoriska kala duwan ee nolosha loo helo institutionno sidan oo kale u kala duwan wax badan baynu ka geysanaynaa isbeddelka degmadeenna iyo kan gobolkeennaba waan bogaadinayaa walaalaha soyko ee caawa barnaamijkan xidhitaanka ah u samaynaya dadyowga ay caawiyeen waxaana ku bogaadinayaa inay halkaa kasii joogteeyaan intaa in ka badan ay bulshada taraan waayo bulshada burco ku noole baahani 75 qoys iyo 100 ubadaba way ka fara badan yihiin marka inay kalkan xiga intaa labalaabkeed ku fargarayn doonaan baan insha Allah taala rajaynayaa waan bogaadinayaa waan hambaliyeynayaa waan baarigayaa wixii aanu ka saacidi karno ee aanu kala shaqayn karaynana waan kula shaqayn doonaa insha Allah taala cid kasta oo goobta ku sugan oo wuxuun dhalinyaradaasi ay way uga soo baahan doonaane waxaan iyagana kula dardaarmayaa inay u dhagan nuglaadaan insha Allah taala oo wixii ay tari karayaan ama la qaban karayaan la qabtaan fiid wanaagsan way quruxda badan in aynu ugu talagalnay waxa loo yaqaan inay abaal marino dhammaan xubnayaashii aadka u firfircoonaa ee ka soo qayb qaatay inay bulshadooda waqtigooda iyo tacabkooda iyo dhididkoodaba dib ugu celiyaan imika waxaan doonayaa bismillahi rahmaani rahiim nolosha barakaysan caafimaad qabna aan ku fadhino iyo arrimaha oo dayna noo hayeen sidan quruxda badan mayna fadhineen qaabkana umayna bislaaneen marka ilaahay aynu aweydiyo casharba waxaweeye mahadcelinaynaa intaa kadib waxaan iyagana hambaleynaynaa waana leedahay mahadsantihiin ururkan ee waxaweeye ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo gaarida dadka maqaajeysan iyo dhammaan ururada kale ee la midkaa waxaan leenahay shaqo fiican ayaa haysaan oo runtii looga baahnaa waxaa weeye mas-uuliyiinta qaranka u adeego sideeduna dadku way isqaabaan oo qofka haddii uu meesha bannaan ee uu arko inay waxaweeye tahay in la awoodo uu isu xilqaamo rumahaantii dhammaanteed aan wada noolahay qaabka wiilka kaga gaaran laba qodob oo waan kusoo jeedinay hadalkayga warinta koowaad fariin waxaan u dirayaa mas-uuliyiinteena mid walba dhalinyarada ayaa kaga gaaraya taa mas-uuliyiinteena u dira waxaweeye ururada noocan oo kale ah waxaan leeyahay mas-uuliyiinteena
وحاول على شغالة أسلمتها آل زمرة تانا وأيضا أخرى بضل أيها الحلوة كرم وأنا خير في الفرعون نور من أول فريق ونظرية الله ومضى أنها مشكلة الشغالة لما تقول أسلمت تانا إسلامتها على سكوتها إلا فرضيه إلا تغييره إلا المعنى ويقول إذا أنت تشغل نفسك فنمرها لتفارق على الممكن إسلامتها على وفق استقوائي وأهلها مشغلية دينية لسكوتها أولا قراءة الله المؤمنين وأفضل الله مسلمين بأسعار مسلمين تقول الله تعالى بس سعرت من الأعمال وهذا هل قد أن يشهد أنه شيء وهو يؤمن إن عند الله عزيز الدنيا كرامة وشرف بمثلنا يمشي الجنة إلى يأتي السماء وقلب ربهم بمثلنا أنت يا الله إلى الله يرسم يا مجدان يا مدعاكسي تطبق المرأة أنا عبدنا وعلى الله ولا مشاهدة الرسولات حوالي الله وهذا يعني حفظ الرسول لمن تنبشر الأولين أنا مسجد جامع تذكر الرسول أنا مشهد من الدنيا أنا مشهد قوينا ومريت أبيت من الرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaynu caawa joognaa xaflad loo xafladaynayo shaqo ay soo qabtay bishii ramadaan ururka sayko oo kaashanaya ururada maxalliga oo aan kaashan urura caalamiya waxaynu la dabaaldagaynaa oo la faraxsannahay shaqadii ay soo qabtay bisha ramadaan aynu bogaadinaynaa waxaan leenahay mawruun sidoo kale waxaan leenahay ilaahayna ka abaalmariyo dhalinyarada Soomaaliland gaar ahaan gobolkeena Togdheer waxaa moodaa sanadihii u dambeeyay inay saaxadda ay soo galeen dhalinyaro mutadawwiciin oo fara badan runtii madaaliyaal bulshada shaqooyin badan u haya keliya ta innaga inooga baahan inaynu garab taagnaado markay noo baahdaan inaynu ilaahno waa mahadsantihiin markay shaqo qabtaan inta u badan aan ugu taxawaynta waxaan kaloo soo sheeginayaa caawa baahida bulshada dhowr siyaabood baa loo ogaa qof baahan haddii aad wax siisoo quudiso dee wixii markii uu cuno ama uu xidho kadib haddana waa baahan oo baahidii xaalad koran baad ka jartay baahidii laakiin baahidii meesha ay taagantay dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa ama dhammaantiinba ay doonaynaa inaynu awoodda saarno sidii loo samayn lahaa farsamooyin iyo habab dadka baahida looga saari lahay oo qofka inaynaan quudinoo ku ahayn inaynu qofka fursad u samayno oo kusii noolaan karo muddo oo uu kusii shaqaysto ama xirfadaha la qoro ama ganacsiyada korkoona loo furo ama beeraha iyo wax soo saarka cagtaa loo saaro aynu awoodda saarno oo fikirkiis guudiyeyno war haddii mar la baahiyo qofka marla baahan jiro way ku soo noqonaysaa inaynu fikirkeenu u isticmaalno sidee baynu u samayn karnaa tallaabooyin baahida ka saaraya meesha way kala fiican tahay qof aad xirfad bartay qof aad small business u furtay qofkaad fursad kala siiso oo noloshiisa ku soo maareeyo iyo qof aad adigu gacanta wax uga dhigto oo wixii isticmaalay marka tan waa shaqo qolaa hayse way ku hambalyeelaynaa shaqo ballaaran bay hayaan waa shaqadii laynoo xigmaday inagu dowladda waa dadka eedeeyaane shacabku in la isku naxariisto oo waxay siiyo oo isgacan qabto waa arrin diiniga arrin dowladda laga sugay maahe waa arrin diini oo xaysku islaacaysa waa kala yarxamu man fi ardi yarxamakum man fi samaa waxaa looga jeedaa isgacan qabto marka waxaan leeyahay aad iyo aad baynu ku hambalyeelaynaa waanu jiri tahayna waxaad nooga baahataa sidoo kale aynu farsamooyinka badino hadalka waa soo gurinayaa xilli dambe asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatu
تقوى الله تعالى وادعوه. فالتقوى خير ساد. أولا ولا ليال حين نفترض أن فينا ما يسوق الدار بينه إنني إلهي كعب صلى ودبارك عليه ودبارك النبي عليه الصلاة والسلام. قف آدمية كلمة كقال سنة الدنيا أنتم كنوا لي الله يا مجد. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وسيد عباده وتغنى قبضي سد الدلاعين الله وحكوا يا أيها النبي اتق الله. نبي إلهي كعبصر مركا يعني حوي إلهي إلا كعبصر ساد لقاته يدعو خير بدن حقي ساد لو قادنيا وحساد لو قادنيا ميلا لغا سو نقوني حلو باهي مركا والله السعودان وفروا ما نبى تجلسا إن الحق هذا أول ما وحكوا أنفاق هذا أنت كذب أيها الأخوة عن هذا علينا يا إلهي هل كيسوق كاني إنه هو حوي كهذا لنا وحقبت كتدك ولا لدينا إبعنا اللي جهبلات. رسولك عليه الصلاة والسلام وحوله خير الناس أنفعهم للناس. تتكحوا خير بدن هو أنفعتك صلى الله عليه وسلم. كحوي لن يروى الله يباركيه عن شو مالنتي بقولك قويس وحوي ما شنيت وقت بين بقول يعني لو سو دياري وحيابي اللي عاوني ما أنت ودري شو عاونا iyadoo la soo gabagabeeyay oo qoladii waxa weeye مساعدين تاعي شقيني متطوعين تاعها يعني اللي والله بال مرينين وين جونا والله ليال حوانك سنبا سميسين خير الله يجزيه جزاكم الله خير إنما يحب لبا وما تنتي أدو عما وحكستو ومريكوه مرتو وحكستو ومريكوه مرتو عدبا السبب ومقوط مركوه عدبا السبب سيادته بحوي يعني وحكس حيابها هذا يعني هرمرك اللي قاعد عدو عدبا وهريسي عدبا بلا واحد كذا عمل كان قبتين إلهي وحين كبري إلهي دكابا المريو بحوي أو ميزان كنا حسنات إلهي المسيح عملك وحيابها لو فائدة وحكم ذا عملك إلهي درت الوقت إلهي وحلقة دونه ميل كلام لقيت يعني وحوي لقيت دونه وإلهي وحوي معيط اللي بجلسه والله بركين يا ونصعانيا وإلا هدوم لك لي الرئاء يسمع يقول نقضه حوي عمل كاس عمل صعودا معه كحوران لها عليه إنما بقى الله يباركيه حوي عمل كابرودين سيولا إلهي درسنا هو هذا تاسين يسكوانين ودردار بينه ودام سوش خيسين تدكينين عن فعلين حوي إلهي تستاقنا وحوي هيدي لبلابه وخير قبنا الله يدوهم وعنفعه قفل والسؤال دو هيدي هذا واري ميسي واركاها احنا وسعونا يساعي وحريب ليش متكسعوا سفر باطاي نفط هذا أنا أنفع غير كان أنفع المؤمن سالع لنفسه ومؤمن يعني ومسلع لغيره وفق مؤمن كان وفق نفتي سنة إصلاحية غير كينا إصلاحية من هيجيها كاوحان تاسين سكو دار مينا أبعد المرية رومان تيجي حوغي كلمات المسلمين هذا حوي ما لكن إنه أدونك هدف كوي يشوف وقدم عين وحيالان والصمين إلهي كجهره مالين يعني باهي بدن لقبو إن إلهي كجهره إنه حوي وقفه هدف كائن دونه لكن هبلي وقع وسوى شقيين وواناين وحكونا أكسن يعني وحوي إن الإلهي درت عمل وقبته إلهينا وحكقدمته ولا لنا هم جاي هدف كابون مقضيين يعني وحوي السبب المقضو إن الإصلاح السؤال ما هو الضيعان أو حوي وحكو سيادس تزكسرنا يا والله على بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيان إنك بدن بقول قويس
hadda waxaan insha Allah billahi kariim martida xag inta dambe u yeeri doonaan doonayna xasuusiyo maadaama waqtigu nagu kooban yahay inaynu soo koobno insha Allah billahi kariim kelmadda hadii doontaan waxaan halkan uga yeeri doonaa insha Allah waxa loo yaqaano agaasimaha dadweynaha dawladda hoose ayaan doonayaa isagoo halkan nala jooga inaan uga yeero Cabsaaq fadlan igula soo dhawaan leh waxa loo yaqaan stage-ka una sacabto sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala ina soo karsiiyay inaynu isugu nimaadno madashan caawa aynu waxa way isugu baarigayno isuguna dhiirigelinayno inaynu qabanay mid ka mid ah shaqooyinka aynu bulsho ahaan isku leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisana ajarkaynu kaga helayno cid kastoo arrinkaa qayb ka noqotay iyo cid kastoo niyadda ka jeclaatay iyo cid kasta oo waxa way wuxuu ku darsatay wax yarna ahaadee ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan aad ugu waxa way hambalyeynaya walaalahay reer Sayko iyo cid kastoo barnaamijka qayb kala noqotay oo ururada halka ku taxan ay ka mid yihiin cidda loo adeegay ee shaqada loo qabtayna waa cid laga yaabo hawadaantii loo qabtay in maantana ay ka baahan yihiin oo baahidii maanta ay jirto waxay marka u baahan tahay qadiyadani in ay noqoto qadiyad end point leh waxay meel ay ku dhamaato leh laga soo bilaabo 2019 ilaa iyo 2023 waxaan ka shaqaynaynay in dadkaas wax weeye baahan runtii la quudiyo oo marka si kale waxba aan ugu qaban kari weynay isla xaafadda degayn dhexdeeda aan u marnay oo intaan xaafadda soo jeeda ka soo qaadnay ka soo horjeeday baahan la siiyay laakiin waxaan hubaa idinkuna ogtihiin in dadkii bariga imikana caawin ay baahan yihiin oo laga yaabo qaar ka mid ah caaw waxba cunin marka waa qadiyad u baahan iyo mashruuc u baahan in sidiisa loo gabagabeeyo dunida waxyaabaha aan lagu kaftamin ee hadalka aan gelin ee buuqa iyo jaamka midna aan waxa weeye awoodin waxa ka mid ah in qofku uu helo wuxuu cuno inuu helaa wax buuq gala maaha wax in marka qofku waxa weeye dawlad uu dhex joogana uu ka warwaraa aanay ahayn waxaanu ka warwarhaynaa dunidu intay dhaaftay in qofku uu wax helo isagu baacidda muhaajiriinta ku ahee waxa weeye dhulkooda tagta ee wax helaan waxaan ka warwarhaynaa cid kasta oo maanta bartan ka tagto oo tahriibta ama waxa weeyaan dalalkan Yurub ku laaji ku ahi wuxuu helaa wuxuu cuno oo dawladda ama ha ka helo ama organizations loo xilsaaray ha ka helo qofkaasi hoyda uu haystaa meel wax ka cunana uu haystaa sidaas darteed waxaan u baahannahay in waxana ay noqoto wax la soo gabagabeeyo oo bulshadeena gobolka Togdheer ku nool tirakoobkooda waa la heli karayaa si dhow loo helo institution guud oo dadkaasi ay cuntadooda ka helaan dana kalena dawladda u qabta haddii dawladdu booska ay buuxiso in dadkaasi ay habeen kaliya aanay seexanin iyagoo bilaa cunto oo waxa cunaan haysta boos bay dawladdu u buuxinayaan ama shaqaalaha noqdaan ama meelo kale looga baahan yahay ma garanaysaa helaan qadiyadu waxa weeye sugaysa oo u baahan in si dhow looga fikiro oo la gabagabeeyo oo waxa weeye intay naga dhamaato wixii kale aynu waxa weeye isku tari karayno ee aqoontii ahayd ee waxa weeye waxbarashadii kale ahayd ee arrimihii guud kale ahaa in looga gudbo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aynu ugu sii soconaynaa imikana insha Allah billahi kariim waxaan doonayaa inaan halkan stage-ka uga yeero waxa loo yaqaano isduwaha wasaaradda arrimaha bulshada Cabdillaahi Ciise insha Allah saabi igula soo dhaweeyay idinka maadsan dhamaantiiba maadaama dib inaan ilaahay karaameeyay inta haddaan kaga soo noqdo waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta meesha fadhida hadday tahay laamaha dawladda hadday tahay baadallaahi wa barakaatu bacda salaam waan bogaadinayaa waan u ducaynayaa dhalinyarada bisha Ramadaan ee barakaysanada aynu soo qaadanay ayagoo ilaahay waa xiran haddana quudinayay qoysaska dan yartaa haddana maalintii iidii kala qayb qaadatay inay ka farxiyaan dadka masaakiinta waxa weeyaan wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaan leeyahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ay idinku daro ilaahay subxaanahu wa ta'ala cidii aad ka qaadeenna wixii ay niyootay ha siiyo waa sharaf iyo karaamo in la
dhiirigeliyo oo la yidhahdo waad mahadsan tahay cid kastoo bulshada u shaqaysaa haddii aan noqon nahay wasaaraddii arrimaha bulshada ee qarankana waan idin bogaadinaynaa waan idin hambalyaynaynaa haddii aad nagu soo casumi lahaydeen odhan lahaydeen nala shaqeeyana doorkeyga waanu qaadan lahayn shaqooyinka ay u baahan yihiin bulshadeenna dan yartahay maaha wax la soo koobi karayo waa iska sunnaha nolosha in intayna halkan fadhida qaybo ka midina ay hodheelkan daahdo $10 ka casheeyaan oo 2 jeer marka hodhaan ay ka kacaan qaybo kale oo bulshadeenna ka mid yihiin aanay cashaynin waa iska sunnaha nolosha ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmad bay ku socotaa dunidani waxaynu u baahan nahay markaa bal qof waliba inuu jaarkiisa ka warhayo waxaad arkaysaa 2 reer oo iska soo horjeedo qaarna aan dab loo shidin qaarna ay waddada ku soo gubayaan raashin waynu aragnaa inta badan dariiqada waddooyinka aynu ka beedhayno qaar badan arkaysaa baastooyin waddada ku soo daadiyey iska soo horjeeda waxaa laga yaabaa haddii intaa ay gubayaan ay u geeyaan inay ku nolon lahaayeen weliba magaalada burco xafiiska dadka igu yimaada inta badan ilaahay yaa buu ku keenayaa qoysas dhan oo isku haystaa wax dab lagu shiday in la waayo markaa bulshadeenna aynu wada taageerno bulshadeenna inuu wada kacno dhallinyarada u kacayna waan bogaadinayaa sidoo kale stageka markii la soo wada kicinayay dhallinyaradii soo kacaysay waxaa la lahaa waa wada musharax hebel oonu soo dhoweynaynaa musharaxiinta faraha badan ee cabdisaaq iyo saaxiibkiisa keliya rag badan halkaa fadhiya u dhayda musharaxiintan ku jiraa uu yara ilaawey laakiin waxaynu u baahan nahay waxaynu aragnaa musharax la fadhiisanaya bulshada inta badan ragga laakiin weli doorkii habluhu uu dhimay hablo badan baa meesha fadhiya waxaynu u baahan nahay hablo musharaxiina oo inamada casumo oo codka weydiista maalin walba idinka idinla kulmo oo codka la weydiista maaha markay isteejidii meelaha la joogana aad tirahdaan dumarku siyaasadda lagama qayb geliyo markaa imika waxaynu u baahan nahay bal inanta la soo kicin doona inay noqoto musharax xildhibaan haddii ilaahay ka dhigo oo aynu la shaqayno waayo golayaasha iyo goobuhu dee hablaha qurxiya iminka golihii deegaanka ee aynu doorannay wada foolxumooyin weeyaan haddii dhowr hablood ku jiri lahaayeen dee meeshu waxay noqon lahayd meel nuuraysa sida hoolkaasiba caawa u nuurayo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin waan idin baarigaynaa waan idin ducaynaynaa musharaxiinta uu ugu horeeyo musharaxa organisationka guddoomiyaha oona waxaan u rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku asturo dhammaantiin bin ilahay golayaasha isugu kan keenayna waa khayr qabna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladan CFF dhigtay baan jecelahayo Soomaaliga inaanan isku wanaagsanayn way waxaan doonayaa insha Allah bidnillaahi kariim markii aad ila soo dhaweysaan agaasimaha guud waxa loo yaqaan aasaasihii the guy who is behind the idea of waxa loo yaqaano Somaliland Inclusive Care Organization waxa weeyaan isna xildhibaan sharaxan oo isla markaana aan doonayno inaan cod ka siino waa ninka ay ka soo maxatay idea-da ah inuu bulshadiisa ku celiyo tacabkiisa fikirkiisa waqtigiisa isla markaana isagoo oo bulshadiisa doonay inuu gaarsiiyo heer ay isku filaan karayaan allow me inaad idin soo dhaweysaan dhammaantiinba waxa loo yaqaano guddoomiyaha cabdisaaq Saleebaan waran cadde waxaan doonayaa sacab diiran igula soo dhaweysaan insha Allah bidallaahi kariim رب العالمين صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرين إلهي بمهضله gudahaan waxaan salaamayaa marti sharafta ugu horeeyaan mas'uuliyiinta jaamacadda gudoomiyaha jaamacadda Togdheer suduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada agaasimaha maxadka shaqaalaha dowladda ahna xildhibaanadu badan yihiin gudahaan way sawiraya gudoomiyaha Barwayo Center agaasimaha dowladda xiriirka dowladda hoose Cabdikariim Maahir Cabdisaaq oo xildhibaanada soo socda kulleydii wada tirin karimaaye dhammaantiin si guud baan idin wada salaamaya walaalayaal intaa ka bacdi kulleydii barnaamij baan wadnay sanad bishii u dambeysay Ramadaan aanu ka wada qayb qaadanay annaga iyo tiimamka arrimaha bulshada iyo hay'adaha kala duwan ee deegaankan iyo gobolkan Togdheer ay leeyihiin barnaamijka waxaa ka faa'iidaystay qoysas danyar ah oo runtii mudan in loo gargaaro oo runtii hay'addan Somaliland Inclusive Care Organization waxay ka shaqaysaa daryeelka dadka nugul waxay ku timi dareen bulsho markii aanu aragnay deegaankan iyo gobolkan Togdheer aanay ka jirin hay'ad ama runtii hawlaha noocaasa ka shaqeeya
ayaanu markaanu xogo badan iyo talo badan aan u badsanay waxaanu garowsanay in hay-addani deegaankan iyo gobolkan Togdheer ay laga maarmaan tahay inaanu aasaasno runtii shaqooyin badan oo aanu rajayno sanadkan gudihiisa inaanu qabanno ayaa tirabeela ayaanu rajaynaa insha allahu tacaala sidaanu ugu tala jirno inuu ilaahayna noola qabto insha allahu deegaanka Burcona runtii waxyaabo badan baanu dadkeeda jilicsan iyo deegaanada kala duwan ee dadka magaalada aanu rabnaa inay ka qayb qaataan oo ka faa'iideystaan kolley waa in la wada shaqeeyaa sida caadiga maadaama dunidu ay gacmo wada jir wax ku wada gooyaan waxaanu aad ugu mahadcelinaynaa intii muddadii aanu jirnay ganacsatada deegaankan gobolka Togdheer ee Burco runtii gacan weyn ka geysatay barnaamijkii u dambeeyay aanu rabadaantii gacanta ku haynay ee boqolka qoys ee carruurta ah aanu kaga farxinay sidoo kale 75 qoys ayaanu caawinay annagoo kaashanayna ururada gobolka ay ka mid yihiin hay'adda sida Somaliland oo weynala fadhiyo gudoomiye ku-xigeenka hay'adda sidoo kale ururka dawladaha qaran oo ay horkacayaan runtii hablo deegaankan u tashaday oo aanu iyagana ugu mahadcelinno runtii sida quruxda badan ee ay ugu midaysan yihiin dantan deegaankan ayaanu aad iyagana ugu mahadcelinayaa sahay aakhira ku xigta ururada arrimaha bulshadu runtii aad u wada shaqeeyaan iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa barnaamijkanna runtii waa mid sii socon doona khayr wadaag 6 sano soo socday sanadka hore sees baa qabatay sanadkana soyka qabatay sanadada dambana waxaan rajaynaynaa haddii waqtigu noo saamaxana inaanu anagu qabanno haddii kalena hay'adaha iyo ururada kale ee bulshada ee gobol inay qabtaan kolley howlahan bulsho ama arrimo bulsheed aanu qabanno ilaahiya baanu kaga doonaynaa ajarkeeda sidoo kale dadka iyaga iyo deegaanadeeda kala duwan ee dalku inay at least nagu celiyaan oo mahadsanidna yidhaahdaan oo shaqadan aanu hayno hadeer arrimaha bulshada ee aanu isleenahay waqtiyada faraaqadaada haysaan dadkiina wax ugu tara haddii aanu mandate u helno oo aanu tagno golayaasha kala duwan ee sharciga iyo miisaska saxiixiyadu yaalaan runtii waxaanu isleenahay wax badan baa dadkiina iyo deegaanadiina kala duwanba aad u qaban kartaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaa bal walaalayaal kolley waadna aragtaanoo nuguma yara waqti nuguma yara sidoo kale juhdi wax badan baanu isleenahay u qabtay dadkiina iyo deegaanadiina Somaliland guud ahaan cid walba oo aanu isleenahay wax u qabtana annagoo maanta aan hayn miis financial iyo sidoo kale miis sharciyada aanu isleenahay dadkiina mustaqbal ahaana sharcigaad wax ugu tari karaysaan oo sharcigaad u samayn karaysaan wax u tari karaya mustaqbalkooda maadaama maanta in waxaan is oran karaynaa beri haddii lacala tagtaan golayaasha kala duwan ee haddii ay noqoto miisaska kala duwan ee financialka iyo waxyaaba mashaariica u yaalaan waxbaad ugu qaban karaysaan iyo sidoo kale muxuu ahaa golayaasha kala duwan aqdamiya muxuu ahaa golayaasha kala duwan sharciyeynta ama golaha baarlamaanka haddaan si kala wadaado waxaan isleeyahay aan istuhumayaa aan saaxiibadayda kale golaha ila joogaa halkan xildhibaanka agaasime sakariye iyo cabdirasaaq ayaan isleenahay insha allahu tacaala golaha haddaad tagtaan wax badan ayaan isleenahay ka qabta sidaad hadeerba aad leediin dadkiina iyo deegaanadiinaba waxbaad ugu qaban karaysaan idinkana waxaan idinka rajaynaynaa hadeer iyo hadhowba haddaanan helinna sidan baanu ugu sii shaqaynaa dadkayga iyo deegaanadayda kala duwan ee Somaliland waxaanu rajaynaynaa inaanu shaqada halkaa ka sii wadno idinkana waxaanu idinkaga baahanahay walaalayaal kuwana daawanaya iyo qodobina horfadhida ee madaxda mas'uuliyiinta iyo dhalinyarada waxaanu leenahay inaynu gacmo wada jir ku wada geyno aynu dadkeena danyarta ah ee kala duwan ee si walba u baahan in wax loogu qabto aynu ka wada midaysanaano sidii aynu wax ugu qaban lahayd waqti at least haddaad wiiga dhan hal maalin aad wax u qabatid ama at least wacyigelin u samaysid waxaan filayaa inaad wax u tartay dadkaaga
markaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan wax badan dadkayga iyo deegaanadayda aan qaban doono sababtana waxay ka midaysan tahay aanu rajaynaynaa inay wax badan insha allahu tacaala oo noo qorshaysan inaanu baahi tiri doono dadka nugul daryeelka dadka nugul waanaanu rajaynaynaa inaanu gaarsiino ruuxada iyo gobolka togdheer iyo somalilandba inaanu gaarsiino adeeg runtii la oran karo dadka baahiyaha gaarka qaba way u baahan yihiin waanaanu rajaynaynaa inaad idinkuna nagala qayb qaadataan insha allahu tacaala dhammaantiin waxay ma qabaan waad mahadsantiin walaalayaal waqtigiina qaaliga noo soo horteen dhallinyarada aanu maanta isleenahay shahaadooyinka muddada bisha rabadaana soo shaqaynayay shahaadooyin siiya oo dhaha waad mahadsantihiin maadaama aad dadkiina danyartaa bishii rabadaan aad quudsiiseen u hagar baxdeen maadaama aad waqtigaana soo siiseen aad baad mahadsantihiin waanuna idiin kalsoonayn doonaa insha allahu tacaala dhammaantiin waxaan idiin leeyahay waa mahadsantihiin mar kale codkana nagogaada waxaan ka cudur daaranayaa haddii uu hadalkayga iga dambeyn lahaa cabdi isduu wuxuu oran lahaa waan filayaa wax khayr leh aadahii salaamaya dhammaantiin salaamo yaqaano cabdixakiin saleybaan madoobe iminkana waxaan jeclaan lahaa inaad ila soo dhaweysaan gudoomiyaha ku-xigeenka hay-adda sees mustafe aadan ducaale jalowo sacab diiran insha allah bidnillahi kariim كذا ونحسن دمانتي هذه أربعة سلامية شرفت الرجل يكسر الجراش أربعة سلامية وبمرين وحناها بريانية هاي السيكو يبقى فاتش برنامج خيرونات كمانتو وحليه شقاء هذه برقبتين شقاء هذه برقبتين شقاء ونحسن برقبتين هذه أربعة يكون بريانية وممتن إلا يهم بريانية حلا ركبة شقين السيد يروفارق كل شقين السيد حتى لو كنا يقدر غيره ما له شقين السيد هذه أربعة يكون بريانية أنت هذا الكلام يبادو كل شقة بركة قبل يوم وحول وحكون كل حبرك شوفتها يوسف ولتان شقرا الحيسين الوقت قاعدنا تشغل الحيسين بدون كذا يخبرنا بالبيت يهدي أي نقول سنة خبرنا مرة أي بيت بساعتين وحنا الله إن شاء الله تعالى سي شرطية سي وضع سنة كهرة أنه سياسة قبلي سنة كنا سويها قبلتي سنة دولة من هذه يوسف وثيقة وقرط هذه كنا قرط وراها وحنا إن شاء الله تعالى برنامج كاسي وبرنامج خيري كل رمضان إلا غشقينا وكمل حي أرنا بشر دور مهم قبل وجهنا وجهنا يمرحبا قرقة دورها أي كرتشنا هل يتشرع على كما هلا هذا الوضع إلى كهلا عدة خصائص هذه تهي دولة هذه تهي دراسة هذه تهي شركات كذا يدنا وحلايه دوركين إن أتقالتان وحول ومهين أنا بسوق كشغالة بوشدنا حلقات بدرنا كل حاجة سكان أيوة سكان فكان واحد بوشدنا أيوة واحد بوشدنا بكيا الجبية هدي واحد غير كانوا هاي ده هو أنشد الفكرة هو أيها الرئيسان مركا مرة بعد مرة حاد وهم ريان هذا السويكو يحميه لا شيء غيره مرك لغات المستحق عليهم شكرا لكم قريتين الله يبارك فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمان مسؤولية كلا دول مرشان كسر غيب كلام وأن سلامته يدعى هم بريد الوقت عليه اليوم قلنا هل كان مرشان لو حفل دينه
lagu bogaadinayo dhammaan qaybaha kala duwan ee ururada bulshada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii waa wax mudan in la bogaadiyo, loo duceeyo, la garab istaago. waxaynu ka warhaynaa diinteena islaamka ee suuban inay dhiirigelisay tiir weynna uu yahay iskaalmayntu, in la iscaawiyo, la isgarab siiyo waa tiir weyn oo ka mida tiirarka islaamka. zakadu dee waa iscaawinu, qofku inuu hantidiisii bixiyo, qof kale oo baahan oo walaalkiisa uu siiyo waa tiir weyn oo ka mida tiirarka uu ku taagan yahay islaamka. marka la doonayo in la helo bulsho adag oo horumarsan oo midaysan, waa dad isku dareena oo isku jeebada oo isku fakera oo meel u wada jeeda. idan cid kastoo ka shaqaynaysa dee midayntii bulshada, isdhexgelkeedii, la dareen qaybsigoodii, u kuurgelidda xaaladahooda dadka baahan aad iyo aad iyo aad bay u mudan yihiin in la bogaadiyo, la dhiirigeliyo. waxaan runtii jeclahay anigoo hadalka aad u soo koobaya laba qiso oo aan isleeyahay waxay ka mid yihiin qisaska iyo dhacdooyinka waktigii rasuulka iyo kadibba laga diiwaangeliyey miraha uu leeyahay iskaalmaysigu. habeen waxa rasuulka sala allahu calay wasalam u yimid nin faqiira oo baahan. wuxuu yihi rasuulka ilaahay adigan marti kuwa nin faqiira baanahay, waxba ma haysto, waxaan doonayaa inaad waxisiiso aad quudiso. rasuulku waxa uu u diray fariin dhammaan guryihiisii bar wax la quutay in laga helo. waa laga soo waayey ilaa laba madmadow mooyaane, waa timir iyo biyo. rasuulku masaajidkii buu ka istaagay, wuxuu yihi war ninkan yaa iga marti qaada oon ilaahay naxariis u weydiiya. mid ka mida saxaabadii rasuulka sala allahu calayh wasalam baa yidhi rasuulka ilaahay ow aniga ayaa kafaalo qaadanaya oo caawa kaxaynaya. ninkii waa kaxeeyey, gurigiisii buu tegey, xaaskiisii baa wuxuu weydiiyey maxaa guriga yaalla. waxay tidhi cajiin yar oo caawa aan ugu talagalnay carruurtunbaa inoo yaallaba. waxuu yihi carruurta seexi oo maaweeli, nin marti ah oo martida rasuulka sala allahu calay wasalam baa inoo jooga, isagaynu siinayna. sidii bay samaysay. maxaan carruurta siiyaa iyo maxay waxaanad la timi iyo ma jirto. waa dad runtii caawinta iyo khayrka iyo marka wanaag laga hadlo labeyka odhanaya. markii loo soo dhigay ee loo diyaariyey ayaa waxa uu yidhi nalkana inaga demi, iftiinka inoo baxayana demi, si ninka martidaa uu dareemo uu israada gacantaa la wadageliyo waa la cunayaa, yaan lagaa boodi. weliba sanqadha cuntada weelkiisana way maqashiinayay. ilaahay aad iyo aad buu la yaabay. rasuulkaa loo waxyooday, waxaa lagu wargeliyay rasuulka inuu ilaahay la yaabay ficilka uu sameeyey saxaabigaas. subaxii buu soo celiyey ninkii oo dheragsan, rasuulku u keenay sala allahu calayh wasalam. rasuulku u weydiiyey war maxaad samaysay? waxale waa lay waxyooday, waxaana lay sheegay in lala yaabo, ilaahay la yaabay waxaad samaysay. markii buu uga sheekeeyey, waxaana ku soo degtay aayaddii qur-aanka ahayd wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. inay naftooda ka qaadaan oo khatar u geliyaan iyaga oo qofka kale muslimka ee walaalkiisa ee baahan nafta u huraya. qisada labaad, nin faqiira oo baahan oo xaaladiisu ay aad iyo aad u daran tahay waktigii salafka ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo haysta cunto yar oo ku filan qoyskiisii oo iyaguna tabaalaysan, laakiin qalbigiisa iimaan iyo qalbi waasacoo ballaaran buuxiyey ayaa waxa uu la kulmay agoon tiihaysan oo dhibaataysan oo 2 maalmood aan waxba cunin. waxa uu kala doortay xaafaddii iyo qoyskii sugayey iyo agoonkaa inuu ku caawinayo. fikir yar kadib iyo laxadaad yar kadib waxa uu go'aan ku qaatay inuu agoonka siiyo wax. agoonkiibuu u dhiibay isagoo gamca maran oo wuxuu gurigiisii iyo carruurtiisii uu kula noqdo aan haysanin ayaa uu tegey, laakiin faraxsan oo leh maa cinda allaahi khayrun wa abqaa. waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ii baaqi yeelay, iigu talagalay baa ka khayr badan oo ka wanaagsan. isagoo faraxsan buu gurigiisii tegey.
habeenkii baa riyo waxaa lagu tusay in ilaahay subxaanahu watacaala sadaqadiisiina ka aqbalay meel aanu filanayna ilaahay ka arsaaqayo waagna markuu beriyey waaba wiil dhalinyaro ah oo kiis dahaba sida ayaa waxa uu yidhi waxaan doonayaa inaad iga guddoonto waa wasiyad iyo dardaaran aabbahay hanti iyo xoolo uu ka tegey oo yidhi qof faqiirahoo saalix oo wanaagsan sii magaalada markaan sidaa u eegayna adigaa ku habboon ee iga guddoon idan wahal jazaau lixsaani ila alixsaan wanaagga ilaahay subxaanahu watacaala qiyamka iyo tiirarka uu dunidan uu ku dhidibada u taagay wahal jazaau lixsaani ila alixsaan idan qof kasta oo wanaag ka shaqeeya maaha oo keliya samafalku iyo iskaashiga bulshadu dhaqaale la bixiyo way ka qiimo badan tahay waa tiir ka mid a laakiin waxaa ka mida talada waxaa ka mida garab istaagga waxaa ka mida waxbaristii waxaa ka mida caafimaadkii nooc kasta oo baahi oo qofku uu daboolo oo walaalkii haysata waxay noqonaysaa nooc iskaashiya iyo tacaawun aad iyo aad baan runtii ugu dhiirigelinaya xubnaha hay-adda ee runtii hawshan isu taagay iyo cid kastoo ku garab siisay iyo qof kasta oo ka qayb qaatay ilaahay subxaana watacaala waxaan ii weydiinaynaa miisaanka xasanaadka inuu ugu saaro idinkuna khayr iyo wanaag waxa weeye fisha aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waa idin garab taagannahay waa idin dhiirigelinaynaa waxaan leenahay wax wanaagsan oo adduunkana lagu jecel yahay ilaahay agtiisana wanaag idiin ah ayaa samayseen ee hor socda wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu agaasimaha guud ee hay'adda Soyko Axmed Tayo ila soo dhaweeyay insha Allah billahi madashan waxa loo yaqaan lagu abaalmarinayo ama lagu xusayo xubnihii bishii barakaysan Ramadaan soo shaqeynayay ee dadaalka iyo time-ka iyo juhdiga soo galiyay si ay dadkooda dan yarta wax ugu celiyaan marka labaad waxaan macdanayaa masrafta ka soo gashay xafladan ay ugu horeeyaan waxa loo yaqaan gudoomiyaha jacaad togdheer istuuyaashii tagay xildhibaanada sharaxan Suudaan Sikriye Buuraan waxaan iyo dhammaan xubnaha kale ka soo qaybgalay xafladda waxaan ku salaamayaa salaati islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sanaa kadib kulli magacaygu aniga waa Axmed Xasan Cali Axmed Tayo waxaan agaasimaha guud ee hay'adda Soyko ahaana runtii agaasimihii barnaamijkii khayr wadaagay bishii barakaysan soconayay isku dawladkiisii iyo taawashayntiisii agaasimihii lahaa baan ahay waxa loo yaqaan haddaan ku soo dhawaado barnaamijkan si yaro kooban barnaamijkan runtii waa barnaamij miska sadhaca waxa doorkan qabtay hay'adda Soyko sida la soo sheegay doorkii horena waxa qabtay hay'adda SAIS barnaamijkan waxa loo yaqaan waxa ka shaqeynayay dad loo yaqaan frontier ama tabarucaad dadkaas oo tiradooda dhammayd 50 qof kuwaas oo loo badnaa dadkaas waxa loo yaqaan hay'adda barnaamijka intaan bilaabin ay siisay tababar ama training sida hawsha loo qaban lahaa runtii xubnahaas hablo badnaayeen waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xubnahaas oo bartan aan caawo kaliya runtii aan ku filnay shahaadooyin aan siiran laakiin runtii aan waxa loo yaqaan aan siin doono abaalmarino kale insha Allah taala ilaahay ka dhigo barnaamij xubnaha hablo badnaa wanagnahay ka bulshada habloolkii nagu jiraan hablahaas waxa loo yaqaan aan ku qiyaasay marasada gaarayeen runtii waxa loo yaqaan soo kala hayay barnaamijku waxa la shaqeynayay sida hashafti subaxii iyo casarkii iyo habeenkii intaba habluhu ku jireen runtii habluhu iyagoo haddana diyaarinaya furtii iyo hablii iyo hawlihii guriga loogu talagalay ayaa haddana barnaamijkaasina wax ku darsada wixii intii kale keen haddii ilaahay ka dhigo runtii hablaha baan ugu mahadcelinayaa shaqada adag ee ay soo qabteen ee waxa loo yaqaano ah inay dadkooda iyo bulshooda waxa loo yaqaan maxay ay soo taageeraan barnaamijkan waxa loo yaqaano laba face ka koobnaa waxa labada face koowaad waxa lagu ciisiyay 75 qoys baa raashin lagu siiyay facekii labaad waxa lagu ciisiyay 100 ciyaaraba oo agoona iyo tayara baa lagu ciisiyay oo ilaahay noo soo geliyay barnaamijkan wuxuu soo gabagabay bishii boorkasay rabaa hadii ilaahay ka dhigo waxa loo yaqaan waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan runtii waa barnaamij u baahan dhiirigelin waxaan soo jeedinaa xubnaha iyo dawladda iyo magaranaysaa dadkii hawsha iyada ay khusayso in barnaamijkan ay taageeraan runtii waa barnaamij xasaasiya oo la korayo waa dadka waxa ka soo qaad cidaan xasaasi marka runtii waxaan ka maranayaa xukuumadda iyo dawladda gobolka Togdheer in ay wax loo yaqaan barnaamijkaasi maadaama uu bil kasta baxo inay taageeraan dadka markaa ka shaqeynaya cid looma haydaan laakiin wada taageeraan tikraankooda ah ay ku biiriyaan
runtii doorkan waxaan soo kala mahad celinayaa dad kasta qof kasta ganacsade shirkad jaamacad iskuul cid kasta oo barnaamijka gacmaha ka qaadatay oo waxa loo yaqaano dadkooda wax ku tartay runtii aad baan ugu mahad celinayaa waxaan soo kale odhan lahaa barnaamijkan ha noqdo yacni barnaamij diiradda lagu hayo oo dowladda iyo waxa loo yaqaano maxay magaaladiiba ay focuska ku hayaan waayo waa barnaamij soconaya oo la odhan karo waa barnaamij macquula annagu waxaanu soo lahayn taagees ku xaabeenan shimo qolof xaqiiqan aan ku afurna maanu ku xiisin hadii la ka dhaw laakiin ilaahay waxa loo yaqaano wuxuu naga garanayay noo suurtageliyay inaanu boqol iyo shanta qoys aan waxa loo yaqaano maxay aanu u shaqeynaa maanu wax ku harsin hadii la ka dhaw waxaan kusoo gabagabeynayaa hadalkayga hay'adda seeko runtii waa hay'ad waxa loo yaqaano waxyaabo badan insha Allah taala ka shaqeyn doonta way ka mid yihiin waxa loo yaqaan ugu horeyn inay taageerto dadkeeda dan yarta sida caadiga ah inuu burcada waxa loo yaqaan waxa masuulku ku qof ay ku nool barnaamijkan inta ka shaqeynayay ama dadku inta ka shaqeynayeen runtii waxay soo arkeen baahiyaad badan oo gobolka ka jira dulqaad bay ku soo barteen xirad bay ku soo barteen waxay soo ogaadeen in aanay magaalada waxba waliba in aanay magaaladu waxa loo yaqaan dadku waxay haysan ay badan tahay marka runtii waa sababta aan la yahay barnaamijkan diiradda lagu hayo waxa loo yaqaan maxay hanaga wardoon marka waa mahadsantihiin waxaan filayaa in waxaan noolay inuu shahaadooyinkii qaybina hadii ilaahay ka dhigo aad u mahadsantihiin waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad dadkii barnaamijkan ka qaatay kaalinta weyn xubnaha volunteerska ama loo yaqaan mutaciinta oo runtii aanu barnaamijkan la'aantood qaybsamin waxa aan dadka siinay iyaga soo ururiyay runtii waxa loo yaqaan aad u mahadsantihiin shaqada iyo shaqada badan waxa laga waa qabateen bartan kuma soo koobi karaan Axmed ahaan maadaama aanu waan joognaa hadii ilaahay ka dhigo inta badan abaalkiin laakiin waan xus doonaa hadii ilaahay ka dhigo waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh doonayna xasuusiyo in insha Allah billahi kariim waqtigu aad inoogu yar yahay oo xubnaha dambe halkan ka hadli doona ay soo koobaan kelmadda ay dhihi doonaan way ku soo dhaw Cabdicasiis Xiis oo kamid ah hay'adda SES insha Allah billahi يا دمان مسؤولين تكسر قلي أو الرئي وحويان الدنيا جاعدة أي سماها يوحويان حولها كلا كسرة ميلها كلا أنت كبعد واحد سلوك كلا مهد عليا ومرك كواد مهد عليا إلى سبحانه وتعالى إنه سوري لي برامج كان أذكر ما بدل ما يعيش إلا لا خير وذا وقب صومي سنة كل حال وحلوله أنت كبعد واحد مهد عليا برامج كان لما تيمسك كقيم قاتي سيدا قيمة لو كقيم قاتي أنا منا سيجارة وحسن وحنا لما تي الله سبحانه وتعالى هدكارا مريو وحن يجعل يلاون وسيجارة لو يلاون لما تيمسك وحوي على يرد كشة كسر برنامج كا أو كنتي هذا وقت تعال هذا علم غارت هاي أنت بقيم قاتي يجعل وحنا هاي الله تيسنا أشربات كل يوم هل كنت تفضيل لنا واحد ليه وهذا قرنتانين الذين ما مصر الذين مهل عليا هل كان ديال كسولا وعن دول يقول إن كلمة يدكوا كوابا برنامج كان سنة كوها قبصومي إن بقول وحوي قيس وعروضه لو عيسيو سلا كلام وها قبصومي إن شاء الله تدوات قيس ومساكينة لقوديو وحوي وإلى الدليل سنة دول مسنة كتب بيه برنامج كان السيح وجنبه شغليا ولا سيكون برنامج كان دوتينا runtii waxa weeye sidii ugu quruxda badneed way qabteen cid kastoo ka shaqayn jirtayna waxaan leenahay barnaamijku soconaya sanadkan waxaan insha Allah taala ku dari doonaa in barnaamijkani sanad kasta waxaan qaban jirnaa hal mar ama hal season in barnaamijkan aynu ka dhigno waxa weeye barnaamij dadka lagu adeego sanadkan dhammaantii 12 bilood waxaan dhammaantii halkan ku sheegayaa marka barnaamijkan ay soo gaaray insha Allah taala in qof kastaba wuxuu kaliya wada waxa weeye in meel fog gaarsiiyo barnaamijkan ma aha barnaamijyada kale oo mid ah haddii aad aragtaan barnaamijyo kale oo xayisiin leh barnaamijkan xayisiin ma laakiin qof kastaba waxa ajir yaaytiisa dhiganayo ayuu waxa weeyaan ku qarsanaya ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa cid kastoo barnaamijkan wax ku darsatay in la abaalkeeda ilaahay subhanahu wa ta'ala bedel khayr qabo insha Allah siiyo qof kastaba waxa weeyaan muraadkiisa saxan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyo ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan ku koobayaa kelmadeydan runtii waxa weeyaan
waxaan doonayaa oo halkan dhammaan dadkoo dhan aan ka codsanaynaa barnaamijkan in xarun loo sameeyo cid kastoo barnaamijka hadday de kolle waxa weeyaan way noo joogaan kolle madaxdii dowladda waxay nala joogaa guddoomiyihii jaamacadda waxaa kaloo jirta dad baa runtii insha allahu tacaala daawan doona waxaan halkan baaq dheer insha allahu tacaala u marin doonaa cid kastoo barnaamijkan danaynaysa waa barnaamij qiimo badan in loo sameeyo xarun berigii hore waqtigii hore nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaa jirtay xarun dadka masaakiinta waxa weeyaan baytulmaal la odhan jiray waxa weeyaan qofkii miskiina waa laga siin jiray wuxuu u baahan yahay hadday raashin tahay hadday dhar tahay waxaan doonaynaa insha allahu tacaala gobolka in lagu hirgeliyo insha allahu tacaala xarun waxa weeyaan halkaas lagu ururiyo oo keyd noqota waa aragteen dadka ka shaqeeya sadaqada waa dad kooban cabdimaal ibnu sacad baa markii ku soo dhaco waa qof adeega bulshaa waa la waayi karaa waa tan la xidhay dad kaloo iyaga la midana way soo bixi karaan laakiin xagee ka soo baxayaan intay soo baxayaan soo socdaan la aqoonsanayo la fahmayo waxa weeyaan la aaminayo ayaa waqtiga si markaa waxa weeyaan taa looga gudbo waxa loo baahay xarunta insha Allah taasna waxa weey tala aan ku darsanayo barnaamijka dhammaan dhalinyarada ka shaqeysana waxaan leeyahay dhammaantiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisana ajar baad gashateen dadkiinana abaal baad gashateen assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa inagoo kusii soconayna oo isla markaana u dhow in aynu soo xidhno madasheenan hadda waxaan u yeeri doonaa insha Allah bidnillaahi kariim Jamaal Saciid Faarax oo ku hadli doona afka volunteerska hay'adda insha Allah bidnillaahi kariim ku soo dhow Jamaal nabiga amaan leh idinka mudnaanta leh waxaan joognaa mid ka mid ah munaasabadaha ugu qiimaha qadarinta mudan oo dhammaan oo ahayd in cid kastoo madaxa aqoonyahana waxgarada in loo soo kala dheeray baa qof kastoo xilka dawladda ka haya nasiibxuma taas laakiin way dhicin كل برنامج كان خيريا عاود حفيدي سفرينو wuxuu socday bishii Ramadaan lama fiisnooha fiiskii hore wadsiinha kii damooha ciisin kulli waqtigood soo kooban hadalkayga waxa ku soo koobaya saddex kelmadood kelmad waxaan leeyahay dhalinyarada isxilqaantay kelmadna waxaan leeyahay marti sharafta kelmadna waxaan leeyahay cid dawladda ka socoto horta runtii fikirkan dhalinyarada qabatay waa fikir u baahan runtii in la buuxiyo lagu dhiiri geliyo horta waxaad ka codsanaysaa dhalinyarada isxilqaantay in hal mar tasabkii guracda shacabka hal mar guracda shacabka caadi guracda caadi guracda kullay anigoo og in bishii Ramadaan qof kasto oo dan lahaa oo hawsha khayriga dhalinyarada soo qabteen uu sida waxa uga qaabad anigoo og in hawsha volunteerka ama mutacadaba in la qabto ay aad u ogtahay anigoo og in wax kasto oo qofku isku xilqaabo dhibaatooyin badan iyo caqabad ay ka hormariyaan runtii iyadoo taas u jirta dhalinyaradaas waxay waqtigooda u soo horeen inay hawshaas ugu fiican ka qayb qaataan anigoo og in aan cid lacag ku siinaysa masab iyo magac toona aan kaga helin anigoo og in yoolkooda aanu ahayn in la faafiyo magacooda la faafiyo yani magac iyo masab ku helaan kulli waxaan leeyahay dhalinyarada aad iyo aad baad u mahadsantihiin kulli haddaan idin taataabto kulli waxyaalihii inkastoo waqtigu inuu hayo kulli marka hawl mutacalliq laga sheekeynayo wallahi wad yaabaysaa hawl mutacalliq marka laga sheekeynayo qofka ka soo shaqeeya baa garanaya marka qaarkood wax dhici karaysa in dadku ilaahay day isku si kama muslim sayna gacmeena u sameeyay baan u sameeyay marka qaar waxa dhacaysa in dadkii qaar aad la yaabso wallahi mid doonaya ku sii tagaado kelmadda laad waxa leeyahay ganacsatada iyo cidii kale ka socota kullay idinka shidaalka u ah qof dadku waa laba qof hawsha waqtigiisu ka qayb qaatay qof wuxuu ka qayb qaatay maalkiisa marka waxaan leeyahay ganacsatada hawshaas maadaama uu dhalan karayaan waqtigayga anoo jeclayna iskuul dhigana shaqeyna aan u soo horay idiga laftigiina waxa la idka baahayay inaad jeebkiisa ka qayb qaataan marka soo dhac barnaamijkaas kelmadda ku soo waxa leeyahay dawladda kale dawladda wala kafto ilaahay dad badan ka joogaan laakiin waa ka deeriyaa waxaan leeyahay cid dawladda ka socota kulay meesha ku badan wax ka go'an waa dawladda dhalinyarada inaad dhiiri gelisaan waayo waqtigoodii miiskoodii bay soo heleen insha Allah inaad dhiiri gelisaan wixii aad ku dar kartaan ku dartaan ma leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
waxa weeye waa shakhsigii ugu dambeeyay isla markaana inoo soo xiri lahaa xafladeenan caawa iyo madashan waxa weeyaan agaasimaha maxadka shaqaalaha injineer Sakariye Cabdixakiin Sumuni hal igula soo dhaweeyay insha Allah billahi kariim sacab isaga inoo soo xiri doona inta ka bacdina waxaan qaybin doonaa insha Allah shahaadooyin الباسط سيدوياشا لماذا هوش سواء قاسمي حلوا مشاركات حلوا هذا قراها يدقان كذا إذا مرة صحافة وقالين يا نقرأ شو قال يهم كيفتي إذا لحال لأن يريد كسر شقيل يسي برنامج كم ولا أكثر يدعوه شهر شهر كسر شو راح نوصل على إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الله هو سيدوار ما مش ذاك تاجم بقى لكن الحين حكاية يستي I think إنه معلي هاي على السوشيال ميديا كاركي marka kelmadu hal hays leeyahay qofkuna ma day karo uu silaawiya gabaydo inuu cudur daarana case inuu cudur daarana wala macallo kelmada su'aal practice kareeyaan maanaya macallo bishu haa filayaa marka inuu cudur daarana idimadiisa khalday iyo kelmada hal hayska ah sida uga soo baxaysa kama uga soo baxaysa kasma haa filayaa inta marka ka imaado madashu waqti dheer baan soo fadhiyay oo hadalkeedu waa kooban yahay barnaamijka wanaagsan ee waqtiga wanaagsan oo qabtay ee dad walaalaheena oo baahidooda meelaha wada kafayna waqtigii ugu baahida badnaa dabooshen ilaahayna idinka maalinka akhriya adduunka buu diidooda ama qaabto waxaan ugu mahad celinaynaa dhalinyaradiis xilqaatay shaqada wanaagsan waqtiga wanaagsan qabatay madooda ku dheeraado xsaankeedu walaalka Cabdibaas ugu tagay hawlo soo wanaagsan oo micnaha mutadawacnimada ama caawinta dadka dayarta ay leedahay iyo intaan akhraba la gaarin adduunka inta saayada la arkayo marka walaalayaal shaqo xumeeda qaban shaqo mutadawacnimo taa kale maxaa arrimaha bulshada bidna meelaha qaban shaqo ka wanaagsan baa qabateen waqtiga ugu haboona ama sababta ugu wanaagsaneyd ama wax waqti la geliyo ugu wanaagsan waa qabateen marka anaguna waa idin hadcelinayna idinka cid alla cid jeebkeeda wax ka soo saartay ee ku dartay shaqadaas inay qabsanto ka qayb ahaydna waynu ducaynaa ilaahay meesha ay wax ka soo saareen wax ka khayr badan oo ka badan ilaahay ku bedelay ilaahay insha Allah taala waxaan kaga baxayaa dhalinyarada shaadada sii doontaan waa run nimadii halkan ku dambeeyay baa ka hadlay tadawacnimadu waa shaqada hawl badan laakiin waa shaqo magac laga helo ilaahay ninka adduunyada doonayso maamuusna laga helo guud ahaan waxa uu badan oo dunyada loo leeyahay waa inta dambe aakhirada faa'iidada aakhirada wax badan ka qabta laakiin ay markaa inay u dhawraadaytaan inaan muxuu ahayd ilaahay dowdul qaadataan shaqadaana sii wadaan insha Allah taala sida Cabdi ka sheegayna galbeedka gobolada haduu laga dhigana wanaagsan oo dad walaalaheena oo baahada waxsiinaysa dawaa ilaahay laga qabto anu kama qayb qaadan sida runtii laakiin diyaar baan u nahay oo ka qayb qaadano soo fayd karsan barnaamijka balaariya ee dadka ku tuumaysaan doono cidda sida xogga ka qaadan karsan raadiya inta ba barnaamijka ka qayb qaadanayo lagu leeyahay oo bulay manaya qayb ka marka kana waa kii wanaagsan anaga wax ku darsanahay dadkeena dadkeena dayartana wax ku ilaahay ilaahay وانا كفر حسنا إن ضمن بحاجة ملاها إذا صار بيجون ما أعرف نصورها ملاها فاهمين أدى وما هتنتي ورا مشرحين تدعي عن كم دي هنا هاش ما كبر على كم ولا كبر على تبي حاولت مشرح على الجرادة هاش ما لسه صوت وقت يا عبد الكريم بقى في اليوم يا مركان هذا هاش ينسى كل شيء يكسر ويا سكت كذا بيرنود إلى إنه سنة كذا بيرنود حوجنا حوجنا يحولنا يجي سوقنا لا بيسو يجي قال بدو هذا الدلال كل شيء بدو في حالة عيال أنا هشيد الله إن شاء الله تعالى تسكر بحياة أداء ما سيتي لما أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا قيبتي قومي سنيد وحنو قيبين دونا وحلو يقانو شهادويكي وحندوني أنا ويا أقاسمها جودة هاي سويكو أحمد تيو يدمان من شرف تدن كي جاب مديك سيعود قدومان أوصيان وحلو يقانو دمان متوضوعين تا هالشهادة شرفته مركز كسلو بان الله إن شاء الله بدك. واي وسحرنا دي لا كنقول هبينا تاي ماشنا بالشوغان waxa ka cusariya mar gudoomiyaha jaacada iyo wax loo yaqaano ilaa halkan loo sii saamay sharaf soo sii shahaado qaybsano marka qofkii magaciisa la yiri soo isaaga dilay ka dhigo soo ku soo qaadaya waka inkastoo markii hore sheegay wax loo yaqaano noloshan ahay nolol wax loo yaqaan anna ku soo garin dalkiina laakiin wax jiri karo hadii ay ka dhigo insha Allah taala in mar dambe idii qabano qoryaha frontierka marka kuleysa ogaadaan halkan si qaybsano runtii marka hore waxaan yiri doonaa ururada arrimaha bulshada waxa loo yaqaan runtii ururada ugu mudnaaya waxa loo yaqaan inkastoo dhamaantood ay qayb ka qaateen laakiin ururada ugu mudnaa hadii ilaahay ka insha Allah taala marka gudoomiyaha yiri doonaa gudoomiyaha shaada gudoomaya waxaan yiri doonaa marka koobaad ururka waxa loo yaqaan dawladaha qaran runtii inuu jeeyo gudoomiyay Zainab gudoomiyay soo dhawow
waayahay waxa ku xiga sida Somaliland hadduu joogo gudoomiyuhu isaguna soo gudoomo shahaadada haddii ilaahay ka dhigo saakhir ma joogtaa saakhir ma joogtaa waxaan u doonaa soomaaliyaasha sidaad sayidina shahaado oo tagara oo muusan ay dhigeen waxaan kana yeeli doonaa weli aan ku jirna waxba aan soo qaadayaasha ama qofyaasha cabdikariim cabdi isagana waxaa loo baahanaya waa maasantay cabdikariim maxamed ismaaciil isagoo joogo isagoo gudoysay shahaadada oo mutaystay cabdikariim maxamed ismaaciil أحمد محمد علم السمارة مسلم جوجو يسوي سام سينو شهادة متوسطي أبسط مع السنة يسوي جوجو عظيم حمزة محمد ويمكن محمد دون أحمد فرنتير قف الله يقولون على اشتحان إلى ذلك السويسكي وحوور أيام محمد غلط أيام محمد غلط وحكولي عبد الرحمن حسن محمد عبد الحكيم حسن محمد عبد الحكيم حسن محمد أشكر يوسف بارك أشكر يوسف شارع عبد الرحمن موسى السوق عبد الرحمن موسى السوق حمزة عبد علي حمزة عبد علي حمد أحمد يوسف حمد أحمد يوسف أيام آدم أحمد أيام آدم أحمد أيام شوف أيام آدم أحمد أحمد عبد الرحمن شارع عبد الرحمن محمود حمد عبد الرحمن محمود فاضل احمد حير خرافه بلا فعل
وحليمة سليمان محمد حليمة سليمان محمد حليمة سليمان وباريكا أحمد سليمان باريكا أحمد سليمان وجمال سعيد فرح جمال سعيد فرح ويقف الحاضر يقرأ وصل الصلاة وخير عبد الرشيد اسماعيل خير عبد الرشيد اسماعيل وقف يقرأ وصل وليبان ناصر نوع ليبان ناصر نوع ليبان ناصر نوع ومحمد حسن الدولي ليبان واحد محمد حسن الدولي محمد حسن الدولي محمد حسن الدولي مبارك اسماء يعقوب مبارك اسماء يعقوب وراء وسط عبد الرشيد جامع نصرة عبد الرشيد جامع نصرة محمد آدم نمعو محمد آدم نمعو محمد آدم محمد عثمان اسماعيل محمد عثمان اسماعيل محمد عثمان اسماعيل قال موسى حسن قال موسى حسن قال موسى حسن قال موسى حسن رابية حسن أحمد رابية حسن أحمد رابية رحمن مبارك الكريم رحمن مبارك الكريم وهي عبد السمد فرح هي عبد السمد فرح هي عبد السمد فرح سامية عيدروس علي سامية عيدروس علي سامية صفوان أحمد عبد الله صفوان أحمد عبد الله سجل محمد موسى سجل محمد موسى سجل محمد موسى سلمان طاهر سلمان طاهر سلمان طاهر ونصر عبد الرشيد جامع نصر عبد الرحمن جامع عبد الرزاق إبراهيم جامع عبد الرزاق إبراهيم جامع عبد الرزاق إبراهيم جامع أنا طلب يوسف أنا الصبح طلعت وآمنة عبد الله يا الله آمنة عبد الله حفصة أحمد عسكري حفصة
حمزة سليمان محمد عبد الله سليمان سعيد فيصل فرح سعيد فيصل فرح سلمان محمد إبراهيم سلمان محمد إبراهيم سلمان محمد إبراهيم وسودة عبد الله هارون سودة عبد الله هارون إفراح محمد آلف إفراح محمد آلف وقبل الله وصل الشهادة عليه كتب غيره فكتب وعن كده نشوف جماعة مسلمة إفراح حسن عثمان إفراح وقلم موسى حسن قلم موسى حسن قلم موسى حسن وراقية حسن أحمد راقية حسن أحمد صفوان العبيعي صفوان حفصة أحمد الفقه ومصطفى إبراهيم عقيل التسبيح ويسوي ويقول هذا اليوم شهادة أعطانا صوت معه dhammaantiin waa la arkaa hal qof badhina daalan jooga daalo soo hor istaag gudoomiye maad hor fadhiisan markaa aadna horta ma dhammaysateen weli waxbaa khaldana yar fadhiista sawirada qaar baan la qaadin